waxgaradka iyo odayaasha ku sugan magaalo xebeedka Hobyo iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maanta ka qayb galay xalfad lagu caleema saarayay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Suldaan Ducaale oo kamid ah suldaamada ka qayb galaya shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee ka socday magaalo xebeedka Hobyo. Munaasabad lagu caleema saarayay suldaanka ayaa waxa lagu qabtay hoolka uu ka socday shirka nabadda waxaana mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ay hambalyo u direen suldaanka cusub ee la boqray. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay waxgaradkii ka soo qayb galay xalfadda lagu caleema saarayay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Ducaale. walaalayaal marka aad iyo aad u mahadsantihiin ka qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen waan ku mahadnaqaynaa aad iyo aad waxaana codsanaynaa bahweynta habargidid saacad kaliya u shaqaynayo wuxuu u shaqaynayaa habargidid iyo Soomaaliya u shaqaynaya biallah waxa weeye geed hoos leh oo nin kasta oo beesha ka tirsan xasanayo marka geedkaas aan wada beerano biyo badan aan ku wada shubnaa haddii aan la yidhaahdo isaga iyo kuwa nalamidka oo kale oo lamidkaana sidaasoo kalean doonaynaa in loo soo agaasino ayagana haddii aan la yidhaahdo waxaan rabnaa annaga dhan inaan garwaaqsanno oo isla ogolaanno dhaqanku inuu taariikh wanaagsan beeshaan ku leeyahay oo micno ugu fadhida marka aad iyo aad baa mahadsantihiin beesha habargidir curadna ah waxaan si buuxda u soo dhawaynayaa suldaanka halkaa lagu caleema saaray oo sharafka leh kuna soo aaday marxaladda qaaliga ah runtii Suldaan Cabdullaahi Maxamed Ducaale soo dhawaa baan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo hoggaan qaybo badan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo hoggaan waxtara ilaahay waxaan ka baryaynaa meesha uu ku saacado marxaladda ah ilaahay inuu uga dhigo khayr iyo wanaag uga dhigo waxaa meesha laga sheegay oo maanta aqbalay ayadoo jimcaha halkaana lagu casuumay beesha Sacad oo dabcan sida ay haddaba ka dhawaajinayeen gabaygii Maxamed Sahal ayay xisaab ka qaateen hadda waa ogeynaa bas Sacad waa xisaab badnaa beelaha habargiid waa xisaab badnaa inay habargiid ka faa'iideystaan ay maanta halkaan dhaqan cuniyaan cusub jawi wada cusub qaadaan ayay dabcan go'aansadeen annagana waa idin la soo dhaweynaa suldaanka waana idin la aqbalnay mar haddaad dhaqan isku toosinaysaan halkaan marka maantay beesha Sacad beel ka mid ah baa waxay ku duubanaysaa suldaan sanadyada soo socda iyo inta cimrigiisu jiro ay rabaan inuu hogaamiyo marqaatina aan kaga noqonaynaa haddii ilaahay idmo waxaan mar labaad uga mahad celinayaa sida karaamada iyo sharafta leh xilliga ay ku soo aaday oo beesha habargidir aayaheeda ay uga tashanayso ee suldaanka in la caleema saara ku soo aadiyana ma haddaas ilaah baa iskale hoolka ay ka socotay xalfadda caleema saarka ayaa si wada jir ah waxaa suldaanka cusub u caleema saaray beelaha ka qayb galaya shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee haatan ka socda magaalada Hobyo. waxaan kaloo ballan qaadayaa beeshii dooratay oo wuxuu jire inaan u cadaalad sameeyo beelaha kaloo deriska nalaana aan sidoo kale heshiis iyo samafal iyo wada hadal aan ka bilaabo sidaasaan rabaa ayagana waxaan rabaa si cadaalada inaan u cadaalad faro oo waxa la wixii danta guud ah oo beelahaas ama hawiye ama Soomaaliyeed ina ilaahay dartiis uu garsooro. ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray madaxweynihii hore ee Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo maanta soo gaaray magaalo xebeedka Hobyo waxa uu la dardaarmay suldaanka maanta lagu caleema saaray Hobyo waxa uu sidoo kale madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed u mahad celiyay shacabkii maanta ku soo dhaweeyay magaalo xebeedka Hobyo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee halkan ka socda ee bahda iyo beelweyntan ee halkan ku yeelanaysa muddada dheerna loo fadhiyay inaan ka soo qayb galo aad iyo aad ugu faraxsanahay sidaas si lamid ah waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo caleema saarka iyo boqridda Suldaan Cabdullaahi oo ah runtii suldaanan aad iyo aad u aqaano wanaagiisa aan aqaano sharaftiisa aan aqaano wuxuu galo iyo wuxuu guud aan garanayo aan soo wada shaqeynay waxaan runtii
waxaan runtii isleeyahay suldaanka caleemasaarkiisa wax badan oo wanaaga ayuu soo kordhin doonaa hobyuu ku soo kordhin doonaa muduguu ku soo kordhin doonaa galmudug ku soo kordhin doonaa insha allah soomaaliyana waa ku soo kordhin doonaa marka suldaanka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo aad iyo aadan maaragtay kugu hambalyeenayaa ilaahayna xilka iyo mas-uuliyadda culus ee bulshada aad matalaysa aa u qabatay ilaahay ha kuu fududeeyo waxaan rabaa munaasabaddan inaan uga faa'iidaysto soo dhoweyntii dadka reer hobyo iyo dadka reer mudug iyo dadka reer galmudug iyo shirweynaha inta isugu timid ee aniga iyo wafdigii aan hogaaminayey ay noo sameeyeen maanta inaan idinkaga mahad celiyo aad iyo aada runtii waxaa noo tusteen shucuur walaalnimo aad baa waxaa noo tusteen shucuur soomaalinimo aad iyo aadan maaragtay idinkaga mahad celinaya insha allahu tacaala maxamed muxidiin saxan soxo galmudug TV hobyo